hal milyan 350,400 dollar ayaa ka soo xarooday hay-adihii ka shaqeynaya dowladda u shaqeynayay sanadkii 2018 lacagahaas nidaamkii noocaas ayaan u qorshaynay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaa afka dhulka u geliyay oo ka hor yimid Jubbaland iyo Puntland. bismillaahi raxmaani raxiim. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا ونكسن دمان غيرت شرفت له يكون حرن شنال كينا بندر ميديا بندر بنادر واجن والله مدة الصومالية اللي بعتها وحقه المقام بالله سبحانه وتعالى أيان أبرينا عدكست ظلما وحقه كمقام بالله سبحانه وتعالى حقه تصاصاره أنت كذب كسر هذا برنامج كينا رنشاي. isku noqod wanaagsan walaalaha sharafta leh ku xiran channelkeena Bandar Media mar kale waxaan idinka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartid haddii aad tahay saaxiibka ku xiran inaad share ku samaysid like na noo saartid like aad noo saartid wayna dhiirigelinaysaa socodkeen aad ayuu dheeraynayaa adiga ayaan ku shaqeeyaa walaal insha Allah ta'ala waan rajaynayaa codkayga codsigeena inaad naga ogolaan doontid inta kadib barnaamijkeena caawa run sheeg waxaan rabnaa inaad idinku soo gudbino mowduucyo aad iyo aad xasaasi ah oo aad u qurux badan insha Allah ta'ala rajaynaa in adiga wax badan aad ka faa'iideysan doonto doo Allah wadalaydo waxaan rabnaa inaad idin soo bandhigno barnaamijyo aad iyo aad xasaasi ah taas oo ka mid yihiin dowladda Soomaaliya ee hadda la soo dhaafay xiligeedu u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayay ayaarna in idin soo gudbino dakhligii u soo xaroonayay sanadihii ugu dambeeyay markii uu doorashada loo doortay 2017 18 19 20 marka haduu Allah wado leedmo marma barnaamij ayaa idin soo gudbin doonaa caaba waxaan rabnaa in idin soo qaadano dakhligii ku soo xarooday dowladda Soomaaliya ee hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2018 haduu Allah wado leedmo habeenada kalena marna barnaamij ayaa idin soo gudbin doonaa dakhligii ku soo xarooday 2019 ilaa iyo sanadkii ilaa uu ka dhaco qaabkii uu soo gal lacag ay soo xarootay hadana qaabkii loo isticmaalo ayaan idin soo gudbin doonaa haduu Allah wado leedmo waxaan kala rabnaa caawa barnaamijkeena arna inaad ku soo bandhigno maxaa diiday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sanadkan inuu ku soo laabto yaa hor istaagay maxaa koosgareeyay in laga xoog badiyo oo maadaama awood badan uu bidayay soo dhaqaalana lagu toonsanaa ayaa rabnaa idin xogaa idinkaga soo qaadano waxaan ku soo gabagabeynaynaa kulanajiis xildhibaan kulanajiis oo ahaa xubnii ugu cuslaa ee la shaqeyn jiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cod laga duubay codadkiisa ayaa idin soo gudbin doonaa haduu Allah wado leedmo maadaama codkiisa barnaamij dheer uu yahay waxaan rajaynayaa laba qayb in idin kaga dhigno qaybna hadda idin soo gudbino qaybna habeenka xiga idin soo dirno haduu Allah wado leedmo inta kadib barnaamijka hadaan u sii gudi galno sidaan wararkan ka dhawaajiyay waxaan rabnaa in idin bilaabno dakhligii ku soo xarooday dowladda Soomaaliya 2018 qaabkay u soo galeen iyo sidii loo isticmaalay ayaan idin soo gudbin doonaa hadaan ugu horumarsiino dakhliga ku soo xarooday dowladda Soomaaliya wasaaradda maaliyadda laba qayb ay u kala baxsanaayeen qaarna waxay ka soo xarootay hay'adihii dowladda u shaqeynayay ka soo xaroodeen qaarna waxay ka soo xaroodeen hay'adihii ama dowladihii iyaga ugu yabohay lacagaha siin jiray ama kaalmooyin u geysan jiray haddaan u kala bixiyo qaybta kuwaadaan ka soo qaadano lacagaha ku soo xarooday wasaaradaha ama wasaaradii ka shaqeynaya dowladda Soomaaliya hay'adii u shaqeynayay lacaga waxa ka soo xarooday lacag gaaraysa 1,350,400 dollar ayaa ka soo xarooday hay'adihii ka shaqeynaya dowladda u shaqeynayay sanadkii 2018 lacagahaas waxa isticmaalay oo kaliya 5 hay'adood ayaa isticmaalay oo ayaga jeebkooda ay ku dhacday oo kala yihiin wasaaradda duulista hawada hay'adda dambaarista CID-da hay'adda duulista rayidka booliska iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa isticmaalay lacagahaas ay idin soo sheegay oo kaliya waxa kaloo jira lacago kale ayaa jira iyadana oo yabaha loogu talagalay dowladda Soomaaliyeed lagu taakuleeyo maadaama ay cusbeed 2018 ay ahayd dowlad curdub ay ahayd si loo taakuleeyo ee hooleed ay ku qabsato waxa ugu horeeyay lacago oo ka soo baxay midowga Yurub oo ay ugu talagaleen inay ugu yabahaan ama kaalmo ahaan u siiyaan lacagtaas cadadeeda oo dhameed 17,4,816 dollar ayaa dowladda loogu yaboohay inay dowladaheeda kamaalihii dowladda howlihii dowladda lagu qabsan lahayd ay ku qabsato lacagahaas marka la soo diray waxa qasnada kaliya ku soo dhacay lacagaha marka la soo diray waxa qasnada kaliya ku soo dhacay 13,266,660 dollar ayaa ku soo xarootay oo kaliya
waxaa kaloo jiray dowladda aan walaalahannahay sacuudi carabiya oo iyadana usoo dirtay lacag 20 milyan ah si ay dowladda soomaaliya igu taabaqaado ama ay u isticmaasho dowladdeeda meelihii ay ugu baahantahay ay ku samaysato ama ay garab ay ka dhigato lacaga marka la soo diray waxaa dhacday marka in lacagihii la sugaayay 20 milyan qasnada laga sugaayay kaliya ay kasoo gaartay oo kaliya 6 milyan 7,868 dollar oo kaliya ayaa kasoo gaartay halka 13 milyan 929 iyo 132 dollar oo lacagaha meelo kale ayagana ay ku jireen aan lagu soo dirin miisaaniyadda dalka waxaa kaloo jiray lacago kale ayagana ay kasoo gaartay hay-adda qaramada midoobay ee magaceed marka lasoo gaayo ombas ayadana dowladda waxay ku taakulaysay lacago ay ugu talagasay booliska soomaaliyeed in lagu dhiso ama mishahar loogu siiyo ama lagu taakuleeyo lacago cadadeeda ay gaaraysay 1 milyan 254,743 dollar ayaa ombas usoo dirtay si dowladda soomaaliyeed ay miisaaniyadeeda ugu kabto oo booliska loogu saacido lacagaas marka lasoo diray waxaa soo gaartay oo kaliya khasnada dowladda lacaga dhan 535,292 dollar ayaa soo gaarta halka ay ka maqneed lacagta 719,451 dollar ayaa khasnada ka maqneed oo kaliya waxaa ku soo xarootay 535,292 dollar lacagaha guud ee khasnada dowladda ku soo xarootay yabaha oo loogu soo yabooy ayaa cadadooda waxay dhameed 38 milyan 259,559 dollar ayaa yabaha loogu soo yaboohay khasnada dowladdan waxaa ku soo dhacday oo kaliya 19 milyan 872,827 intaas ayaa ku soo xarootay waxaa kaloo jiray gawaari ay lahaayeen wasaaradda gaashaandhigga oo cadadeedii u dhammaayeen 25 gaari oo wasaaradda gaashaandhigga ay lahayd gawaaridaas ee wasaaradda gaashaandhigga ay lahayd 12 xabo waxaa qaatay madaxdii hore usoo martay wasaaradda gaashaandhigga ayaa la tagay 8 ka mid ah gawaaridaas waxay ahaayeen kuwa aan xabadda karin ayay ahaayeen 6 ka mid ah waxaa usoo dhiibay dowladda maraykanka ayaa ugu yaboohday markii hanti dhowrka guud ee baaritaan ku sameeyeen ay aadeen wasaaradda gaashaandhigga waxay soo arkeen kaliya 7 gaari kaliya oo meesha yaala haddana kaaga sii daran 7 gaari ay ku soo arkeen magaca wasaaradda gaashaandhigga kuma qorneen magacyo kale ayaa ku saxiixdaa oo la yabo lahaansha ahaan qof yani shakhsiyaal ayaa ku qornaa oo kuma qorneen wasaaradda gaashaandhigga xaqiiqatan intaas waxaan ugu talagalay inaan idiin soo gudbino warbixinadii guud ee 2018 hantidii soo gashay iyo sida loo isticmaalay sida loogu takrifalay haddii alla awoodi leedmo waxaa idiin soo gudbin doonaa haddana 19 nidaamkii loo isticmaalay dhaqaalihii soo xarooday iyo qaabka loo isticmaalay waxaa kaloo jira lacago kale ayaa jira ayagana ay isticmaaleen baarlamaanka Soomaaliya xilligaas jiray lacagaha ay isticmaaleen wuxuu ahaa lacago qaabka loogu talagalay aan waafaqsaneyn dastuurka ama shuruucda aan waafaqsaneyn lacagtaas oo cadiradeedu ay dhameed 362 kun ayay isticmaaleen baarlamaanka Soomaaliyeed ayadoona la isticmaalo shuruucdii loo dejiyay ama nidaamka loogu talagalay oo isticmaalin si nidaam si dadban ayaa loo isticmaalay oo suuq madow ayaa loo isticmaalay waxaa kaloo jira lacag kale ayadana loo isticmaalay safaro loo isticmaalay oo cadadeeda ilaa hadda aan la haynin ayaa jiray marka corruptionka markaas jiray aad ayuu u balaarnaa insha Allah taala waxa idin soo gudbin doona haddana 19 bisha 2019 qaabka loo isticmaal miisaaniyadda dhaqaalaha ee 2019 ee dowladda Soomaaliyeed ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hogaaminayay taa inta haddaan kaga gudubno waxaan rabnaa inaan isweydiino dadka isweydiinayeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa diiday inuu madaxweyne sanadkan u noqdo ama yaa hor istaagay sidee lagu guuleystay xaqiiqatan waa su'aal dadka isweydiinayeen oo ay rabaan inay ogaadaan jawaabihiisa ay ogaadaan حقيقة ما أنت وحن تاجنا هاي ما أنت مدحبينه وحودنك هو حسن شيخ محمود أيام مدحبينه هو عودنك معلمين اللي سودا في دورشوين يا كده عودنك دورشوين كانوا يحودا سيدا دار كيسان وشاشة إذا كان مقدم ماشى وحكسوا على نظام سوق أي كجري أو لو كل إبسنا عضد لو كل إبسنا وحماشي إذا كان مقدم قبله حلبان ذاها أي ماشى كشقين أي أو راقة إسلا وطن إسلا جدا بواق وطن وحكي كشقين أي نظام كي عضلو كيني لها أما لو كل جد لها وحماشي كبل عضي سوق أي كبل عضي أو لو كل جدنا عضد لو كل جدنا النظام مركز في صدن إيش صدن إياه سجال
qof baarlamaanka doorashada ka qaybgelayay 39kaas dhammaantoodii maysan ahayn dad madaxtinimada u diyaarsanaa laakiin waxaa loogu talagalay oo keliya markaad runta aan rabno inaan ogaano waxaa keliya u cadcadaa 4 qofood ayaa u cadcadaa 4taas oo ahaayeen Saciid Deni Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Cali Khayre Xasan Sheekh iyo Farmaajo 5taas ayaa u cadcadaa inay doorashada ka qayb galaan inta kale waxay ahaayeen ziyaada ayay u ahaayeen marka 5taas markii wareegga koowaad la soo gudbay wareegga labaad markii la soo gudbaayay qaara haray qaarna way ku soo baxeen qaarka ku soo baxay marka waxa ka bilowday meesha waxa ka bilowday marka sidaad u jeedaan qiimeyn iyo miisaaniyad iyo ganacsi ayaa meesha ka bilowday xataa nidaamkii loogu talagalay in doorashada ay ku dhacdo xogaa waxaad moodaa inay ka baxsaneed maxaa yeelay gudoomiyaha loo doortay inuu hogaamiyo baarlamaanka waad arkayseen uu iska fadhiyay xataa nin qawaban uu ahaa asaga naftiisu raaliyo ka ahaa in ganacsigaas meesha laga sameeyo waxaa dhacday marka in ganacsi meesha lagu sameeyo xataa uu ka soo qayb galo ra'iisul wasaarihii waqtigiisa dhamaaday Roble uu ka soo qayb galo asagoo wili ciidan uu isticmaalayay oo meesha inay kaga muuqdo warbixina loo soo gudbinayay xataa waxaad moodaa inuu coach meesha ka ahaa ama tababar meesha ka soo idin kaga muuqdo wuxuu u taagay meesha nin coachkii tababar amal meesha u taagay waa u jeedaan ciidan ayuu dirayay uu dhahayay codadka la soo gado codad la raadiyo marka cal umum isku soo wada duub codad ayaa la kala gadanayay meesha marka waxa ka dhacday nidaam aan qurux badnayn oo shacbiga Soomaaliyeedna aanan soo jiidanaynin waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sanadka markuu naga dhamaado in Allah subhanahu wa ta'ala na gaarsiiyo nidaam wax lagu kala daro yani cod one man one vote inaan gaarno marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa waran nagu soo gaarayeen dadka marka hore wuxuu uu sheegay asaga inuu lacag bixinaynin ayuu go'aan ku gaaray marka dad ayuu dhowr qofood ayuu lacag gaagaaban u siiyay si ay u madadaaliyaan kooxda doorashooyinka ugu jiraan xildhibaanada ugu jiraan si lacagihiisa ay ugu badbaadaan laana wuxuu hore u soo arkay Xasan Sheekh Maxamuud sanadka la soo dhaafayay laba qasaar ayaa ku dhacday qasaarada koow waxay ahayd asagoo lacagana dhiibay ayaa haddana codna uu waayay marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuu xariiftamay wuxuu yiri hadii ay dhacaysan haddaan cod waynayaan ileen lacag iyo cod yeesan qasaar igu dhicina lacagteedan cishana anay lacag ma bixinay cod haddaan helayna codkeyga dadkan waa mashquulina kadibna sida ayaa wax ku qaadana ayuu dhahay lacag inuu bixiyo ayuu diiday halka qolada kale ay lacag ay bixiyeen lacag ugu yaraan 60,000 50,000 40,000 ilaa 30,000 lacag ayaa ay bixiyeen si ay cod u helaan dad badan ayaa qasaaro ku dhacday oo haddana cod aanan helin laakiin Farmaajo wuxuu dhahay aniga waxaan diyaar u ahay inaan tartanka ka qayb galo xataa waxa la dhahay iskaga tanazul maadaama laga cod badan yahay oo shamsi lagu qaadayo ka tanazul ayaa la yiri wajigiisa wad u jeedana umala inuu aad iyo aad u tiraysan yahay laakiin lacagta uu dhiibin darteeda ayaa lagu guuleystay maadaama baarlamaanka uu noqday meel wax loo kala gadanayay sida ayaa keentay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in lagu guuleysto waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan ka bixi doono in codkan la iibsanayo oo masiirka ummadda la iibsanayo inaan ka bixi doono ayaan rajaynayaa insha Allah ta'ala hadduu Allah wada leedmo waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan maanta soo gaaray codad oo soo duubay ama laga soo duubay kollejiis oo ahaa madaxda ugu sareysay ama la taliyaashii ugu sareysay la shaqeynayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marar badan talooyin badan ay siin jireen talooyinka uu ku shaqeynayay marka qorshe ayaa u degsanaa qorshooyinka badan waxay degsadeen nidaam ay degsadeen ay rabaan inay wadanka ay ku hogaamiyaan ay ugu tala galeen codad ayuu duubay codadkii uu duubay ayaan rabaa inaan idin la wadaago duwa la wada leedmo idin warka idin ku dheeraan maaya codadkiis ayaan rabaa inaad ila dhageysataan waxaan rajaynayaa inaad wax badan idin kaga soo baxo waxaad Soomaaliya waqtigan waxay taagan tahay maalmihii ugu xuma ay taagan tahay waxaan gaarnay in codadkeena la gato waxaan gaarnay inaan sidii doona nagala yeeshto waxaan gaarnay inaan Ethiopia loo isticmaalo Kenya loo isticmaalo liana taana waxaan gaarsi wax kala ma ahane anaga ayaan naga weynay dadkii walaaltinimada raadin lahay ama dadkii corruption iska istaagi lahaa weligeed lama sheegin wadan intaan sano oo dagaal ka dhaxeeyo ilaa hadda jidkii ay wanaagi ay aadi lahayeen ilaa mugdi ugu jiro ilaa wili hadda lama sheegin wadamo badan waa soo aragnay oo dagaalo ay soo mareen oo dhibaatooyin ay soo mareen laakiin qof kastaba wadaniyada ayaa la weyn tahay wuxuu xooga saari jiray sidii lagu heli lahaa nabad lagu heli lahaa ama horumar lagu gaari lahaa sida ayayna wadamo badan ay dhibaatooyinka ay soo mareen ay kaga baxeen laakiin anaga waxaad moodaa wili
waxaan nahay dad aanan weli u soo jeedin inay wadankooda dib u dhisaan ama horumar ay gaarsiiyaan ayaan nahay insha allahu tacaala. allah subxaana caza wajal ayaan ka baryaynaa inuu na gaarsiiyo wadankeena barwaaqo ah iyo horumar ah. alla subxaana wa tacaala ayaan ka codsanayn inuu na gaarsiiyo. alla ka cabsigii ayaa nagu yaraaday. marka warkii aan idinku dheerin waxaa idinku wareejinayaa codkii laga duubay ama uu soo duubay Colonel Jiis hadaladii uu ku hadlayna waxa uu ka mid ahaa ila dhageysta insha allahu tacaala. barnaamijkan caawa asaga ayaan qaybtaas kuwad kusoo gabagabaynaynaa. qayb labaadna aanan codkeyga ku jirin ayaa qaybta labaad idin soo gudbin doonaa hadduu allah wadilo idmo. dhageysi waan codkii Colonel Jiis. waxay horseed u noqotay arrintaas inaanu toos u maamuli weyno doorashooyinkii ka dhacay Hirshabeelle iyo meesha la yiraahdo galmudug. mar saddexaad waxaa caqabad nagu noqotay nidaamkii muddo kororsiga ee aanu samaynay caraabin fara badan oo ka imanaysa dhinaca Puntland iyo Jubbaland oo nalagu soo abaabulay deegaanada Hirshabeelle iyo galmudug iyo gobolka Banaadir intaba ilaa iyo la soo baaqulay ciidamo aanan anagu ogeyn markii hore kuna xisaabtamaynin ilaa iyo dadka la fahansiiyo kuwanagii in la kala yaaciyo oo anaga dibna loogu soo adeegsado xoogagii muhiimka ahaa aan ku xisaabtamaynay saraakiishii ugu cuscuslaa aan lahayn tallaabooyinka ugu adag ee qaadi doonaan ilaa anagii dibna loogu soo adeegsaday oo na curyaamiyeen. hindisahanagii ugu dambayn wuxuu ku soo dhammaaday wax la dhihi karo gablan iyo dhaxal. arrintii qorshihii muddada dheer aan sircinaynay ee 4 sano ah iyo weliba 1 sano oo lagu daray wuxuu ku soo dhammaaday oo ku soo afjarmay ugu dambayntii nidaam doorasho oo aanan anagu ku talagelin oo doorasho dadban ah in wadanka la geliyo. muddadaas waxaa nalaga diiday oo aan soo marnay doorasho qof iyo cod ah inaan isku daynay inaan wadanka ka qabanno. doorashada qaabkii aan ugu talagalnay oo ahayd in ay nagala shaqeeyaan guddiga doorashadu awooddaas wax lagu dooranayo iyo nidaamka maamul goboleedyada aynan marnaba shaqo ku lahaanin. waxa ka wada shaqeynaya ay noqdaan dowladda federaalka iyo guddiga doorashada. nidaamkii aanu rabnay aan ku talagashanayn oo ahaa inaanu isugu keenno meel dad 5,000 tiradoodu dhan tahay oo 4,895 aanu ognahay inay ku ridi doonaan codadka maxamed cabdullaahi 120 inay ku ridi doonaan ciday rabaan ama aan anaguba u sheegayno dhahayna si bahashu ayna 100% u noqonin 99 ha noqote dad kale ku rida. nidaamkii noocaas ayaan u qorshaynay. mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaa afka dhulka u geliyey oo ka hor yimid Jubbaland iyo Puntland. ugu dambayntii timekii wuxuu soo dhammaaday oo ku soo dhammaaday nidaamkii muddo kororsiga oo kallifay in lagaga awood roonaado magaalada Muqdisho dagaalkii aan ku gallay kaas oo sababay in aan aqballo nidaamka doorasho dadban. nidaamka doorasho dadban aan aqbalay iyo inaan wareejiyo anigu nidaamka xilka hogaaminta doorashada oo aan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha. arrintaas oo ahayd khaldaadkii anigu aan ka galay nafsadayda iyo ummadda Soomaaliyeed basaan aaminsanahay midkii kuwii ugu waaweynaa inay ka mid tahay oo ahayd markii aan maxamed xuseen Roble ku wareejiyay dhammaan awoodihii doorashada ee wadanka anigoo aaminsan inuu yahay nin farmi kara oo wadiiqada aan u marayo doorashadana hadda kadib ay isaga tahay markii aan lahaa anigu waan xaroonayaa isagaan u dhiibayna aan aaminsanaa daaha gadaashiisa inaan u fadhiyayo midig iyo bidixna inuusan u leexanaynin dhaga kale iyo indha kalena inuusan yeelan doonin sidaan wax ugu yeeriyo oo keliya inuu ku socon doono ciddii ka hor timaadana inaan dhihi doono ciddii
awal ba wadanku ka degi lahaa wakaa nin kastoo hawshan galana dadkaan baa ka hor imanaya hebel iyo hebel ah taas oo haddana fashilin ay ku sameeyeen isla Puntland iyo Jubbaland kadib markay isaga laftiisii igala wareegeen ka dhaadhiciyeen inay wada shaqayn yeelan karaan horay u riixeen inuu nidaamka doorasho dadban bilaabo baarlamaankii Maxamed Mursal oo isaga aan ku bedeli lahaa intay si gaara u faqeen ay diyaariyeen qorshihii baarlamaanka lagu kala tuuri lahaa inay magaalada Kismaayo ka soo doortaan 4 qof oo baarlamaanka cusub ee 11aad ah si uu u cancel garoobo baarlamaankii 10aad meeshana ay uga baxdo wax awooda oo aan ku cayrin kara Maxamed Xuseen Rooble arrintaasi waxay soo jiiday aniga oo xilkii ku wareejiyay Maxamed Xuseen Rooble in la kansalo oo la nasakho baarlamaankii Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu gudoomiyaha ka ahaa taasina waxay sababtay inaan aniguna noqdo nin awoodii wareejiyay baarlamaan iyo gudoomiye baarlamaan aan u fariisin kara Rooble oon xil kaga qaadi karan inaysan meesha ku jirin markaas oo khadka ka baxay qaybo ka mid ah baarlamaankii 11aad u kas loo soo saaray si macnihii uu taangiyo si kaaki loogu geliyo shaarad bir ah ninka la yiraahdo Maxamed Xuseen Rooble oo iga itaal roonaado fursadaasina waxay noqotay mid aan anigu bixiyay oo lagu guuleystay liiga guuleystay waana takaliya dhinaca la igu lagday ilaa iyo haddana arrimihii aan soo tircinayay muddada 5 sano dhammaanba gacantayda ka saartay mudanayaal iyo marwooyin waxaasoo dhan iyaga oo dhacay waad ogtihiin inaan ahay maquuste min aan samrin waxaanu adeegsanay waxyaabo fara badan waxaanu ku dhaqannay 5 sano lasoo dhaafay inaanu kala qaybino baarlamaanka inaanu dhex galno inaan u kala qaybino 3 qaybood oo muhiim ah oon gacanta ku hayno qayb 60 iyo dhowr ah ama 70 oo aanu wasiiro iyo wasiir ku-xigeen ka dhigno si aan codkooda 100% gacanta ugu hayno waxaa kale oo aanu ka soo dhex soconay kooxo gaar ah oo aanu danahooda shakhsiyadeed u fulino dhaqaalena ku aaminsiino bil walbana aanu u furo oon u fasaxnay khasnadaha lacagaha ka imanaya dhinaca gadar ama khasnada gobolka Banaadir oo aanu halkaasna howlgab kaga dhigno ugu yaraan 60 kale oo baarlamaan ah waxaa kale oo aan abaabulanay kooxo iyaguna siyaabo kale ku shaqeynaya oo baarlamaana gebi ahaanba marka laga reebo aqalkii saroon isagu nasaxanay sidii aayad ka dambaysa soo degtay oo kale ama xadiis burinaya soo degay yaanu ka asaga u nasaxnay laakiin waxaan ku guuleysanay 100% 75 ama 80 inaan gacanta ku dhigno baarlamaanka aqalka hoose inta kalena inaan ka soo qaadno waxa meelaha iska qaylqayliya oon macna ku fadhiyin dhawaaqooda wada dhageysto laakiin wax awood ah aan ka yeelan karin golaha dhexdiisa markii la doonana lagaba xiran karay isudda waxaan ku guuleysanay in aanu garaacno oon caydino gudoomiyihii si fool xun weliba gudoomiyihii baarlamaanka ee koowaad ee horeen ugu yimid anigu nidaamka waxaanu mar labaad ka tilaabo qaadnay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo aanu ku khasabnay in uu macnihii nala shaqeeyo kadib markii meel uu ciirsada u waayay awood aanu ku caburinay baaritaan markaan ku samaynayna aan ogaanay inuu yahay nooc qudhkumaal leh haddii la garaaco la isticmaali karo kadib aanu u qorshaynay in garaacidda kadib dib loo isticmaalo mudanayaal iyo marwooyin waxaanu ku guuleysanay in
aanu ka helno dhaqaale xoog leh waddanka gadar inaanu ogolaano xidhmooyin shidaal ah oo in u ogolaano waddanka gadar oo aan teknolojiyad fara badan lahayn laakiin leh kambaniyo dhaqaale haysta inaanu u ogolaano xidhmooyin fara badan oonu xiriir kula yeelano oo waddanka shidaalka ku jira ka mid ah inay iyagu soo saaraan oo iyagu ay doontaan oo la yimaadaan kambaniyadii intay la shirkoodaan la qodi lahaa si ay sheerkooda uga helaan oo 10kaas xidhmo ugu yaraan gadar kambani ah oo dhaqaale haysta iyo kambani u wato teknolojiyadii iyo dhaqaalihiiba haysta ay shirkad sharing ah ku noqdaan xidhmo walba annaguna oo ka faa'iideyna dhinaca gadar inay nagu taakulayso dhaqaale ballaaran dhismo ciidan qalabayn dhinaca hubka ah oo si farsamo oo yaryar oo kala dambaysa naloo siinayo oo aanu doonayna inaanu kula wareegno awoodda dalka waxaanu tixgelin dheeraa siinayna wakiilada ay gadar noo soo dirsato annagoo danaha naga ilaashanayna ilaa xaddii aan ogolaalno in kursigana lagula fadhiyo fashil walba ha nagu ahaato maxaa la dhihi jiray maxay guddantiibuu fuudka ugu jiraa oo kale marxalado ah yaanu la soo marnay annagoo garanayna inay tahay arrin kharaad in waddanka iyo ummadda dhexdooda ay faashil ka ahaato in kursiga la igula fadhiyo haddana magaciisii dantiisu ugu jiraa inuu mahmaah la dhahaa jirtay anu aada uma garanayo mahmaahda aada uma garanayo mahmaahdaas yaa jirtay marka mahmaahdaas annagoo adeegsanayna waxaanu macnihiina soo martay oonu aqbalay inaan nalagula fadhiyo kursiga waxaas oo halgana waxaan u maraynay oona ogolaanayna in kursiga nalagula fadhiyo waa danta soomaalida danta ummadda soomaaliyeed yaanu ilaalinaynay sidii dowladnimada soomaaliyeed aanu ku dhisaynay aan waxaasoo dhib ah u maraynay waxaanu la dagaalanay Kenya oo aanu ka hortagnay ummadda soomaaliyeed waxaanu ugu qabanay toosh adag cadaawadii ka dhaxaysay Ethiopia iyo Soomaaliya waanu rarnay waxaanu u raray dhinaca Kenya kadib markii aan isku afgaran weynay arrimaha Jubbaland kadib markaanu ka codsanay inay ciidanka Kismaayo degan iyo Alwaq labadaba nala shaqeeyaan inay awaamirta ka qaataan dawladda federaalka ah inaanu state ciidamo geysanay inay noo fasaxaan oo nagula shaqeeyaan isbedelada aanu doonaynay inaanu ka samaynay state-ka inay nagula shaqeeyaan markii arrimahaas oo dhan ay ka hor yimaadeen oo Kenyaanku ay go'aansadeen inay yihiin ciidan u yimid hal ujeedo oo ay inay la dagaalamaan nimanka afka duuban oo keliya laakiin cid la caburinayo iyo cid aan la caburinaynin iyo ciidan xoog meel lagu geynayo iyo ciidan xoog meel laga qaado waxyaabahaas inuusan shaqadooda ahayn halkaa markii aanu dhaafin weynay waxaa nala habboonaatay in aanu foxka iyaga saarno dhankooda indhaha dadka Soomaalida aanu xagga u wareejino xiisado aan jirinna aan abuuro oo aanu doonaynay inaanu dadka Soomaalida kaga dhaadhicino cadowgooda koowaad inuu yahay Kenya mar walba cadowga madaxweynuhu wuxuu la mid noqonayaa cadowga ummadda xaalad kasta oo jirta ninkii fulin waaya danta madaxweynaha waa nin wuxuu la mid noqonayaa oo lagu qaadayaa kiiska nin fulin waayay danta ummadda Soomaaliyeed taasaan ku qaadnay waxaanu ku rognay cunaqabatayn waxaanu joojinay jaadkeedii waxaanu fursadaas siinay dhinaca Ethiopia oo iyadu loo nuglaato noo ogolaatay waxtarkeedana aanu durba ka dareenay iyana siiba badnaan laakiin dhinaca magaalada Baydhabo inkastoo aan aaminsanahay haddaysan dagaalkii gelin siyaabo fara badan inay wax noo tari lahayd aan aaminsanahay mudanayaal iyo marwooyin
waxaan idinka codsanayaa inaad mar labaad i doorataan waxaanan ballan qaadayaa inaan dagaalkii halkaygii ka sii wadi doono dadaaladii inaan halkaygii ka sii wadi doono inaan isku dayi doono Hirshabeelle iyo Galmudug ujeedooyinkii aan ka lahaa si buuxda inaan u gaari doono 4 sano 2 sano ee hore gudahooda waxaan aad iyo aad try gareynayaa Jubbaland soo afjarideedu inaysan ka badan doonin 1 sano ama 1 sano iyo bad